السلام عليكم صاحب يال كسو دوادا kanaalkeenii alnaqaay media youtube iyo facebook page oo aad uga barateen warar sports oo xaqiiqda ku saleysan mar walbana ku dadaala inuu idin soo gudbiyo wararkii ugu dambeeyay ee sportska waxa la idinka doonaya kaliya waa inaad ku xirnaataan oo aadan seegin wararka subscribe-ka like-ta share-ta iyo comment-skana waa dhankiina haddana aan u gudo galno barnaamijkeena tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa sheegay in kooxda ay qorsheynayso inay sameyso saxiixyo dheeri ah xagaagan Alexander Zinchenko ayaa noqday saxiixii shanaad ee Gunners-ka kadib markii uu 32 milyan oo gini uga soo dhaqaaqay Manchester City habeenkii Jimcaha heshiiska xiddiga reer Ukraine ayaa sidoo kale loo arkaa in kooxda ka dhisan waqooyiga London ay noqon doonto kooxda lacagta ugu badan ku bixisay Premier League ilaa hadda xagaagan laakiin Arteta ayaa sheegay in aysan weli dhammaan sheekada suuqa isagoo la hadlayay Sky Sports News isagoo ku sugan Universal Orlando Resort ayuu yiri Isbaanishka waan dhameystiraynaa wixii aan qorsheynay weli waxaa jira dhowr waxyaalood oo aan jeclaan lahayn inaan sameyno sida ciyaartoyda imaanaysa iyo kuwa baxaya taasina waxaa lagu go'aamin doonaa fursadaha jira ee suuqa waan ognahay halka aan ku dambeyn doono dhamaadka suuqan waxaana rajaynaynaa inaan ka dhigi karno mid shaqeynaysa Arteta ayaa sidoo kale diiday inuu ka hadlo mustaqbalka Nuno Tavares isagoo raaciyay weli waxaan haysanaa ciyaaryahano u tartamaya inay sii joogaan ama tagaan haddii warar aan helnana waa idin soo gaarsiin doonaa inta aanan ka bixin Arsenal maqaalkeeda aan ku sii daro qodobkan ku saabsan Arsenal ayaa Bukayo Saka u soo bandhigtay qandaraas cusub oo waqti dheer ah kaas oo ka dhigaya mid ka mid ah xiddigaha ugu mushaarka badan kooxda sida laga soo xigtay Daily Mail 20 sano jirkan ayaa qandaraaskiisa haatan wuxuu dhacayaa xagaaga 2024 waxaana lagu soo waramayaa inuu diiradda u saaran yahay Manchester City laakiin Daily Mail ayaa sheegaysa in Gunners ay haatan si rasmi ah ugu soo bandhigtay xiddiga heerka caalami ee dalka England ugu yaraan 2 jibaar mushaarkiisa haatan warbixinta ayaa sheegaysa in hadda uusan jirin wax heshiis ah waxaana la arki doonaa sida Saka uu si rasmi ah ugu jawaabo dalabka tababaraha Man City Pep Guardiola ayaa xaqiijiyay in saxiixiisa xagaaga ee Erling Haaland uu qarka u saaran yahay inuu kulankiisa ugu horeeyo uu u safto kooxda haysata horyaalka Premier League marka ay caawa wajahayso Bayern Munich weeraryahanka heerka caalami ee dalka Norway ayaa City kaga soo biiray kooxda Borussia Dortmund adduun dhan 51.1 milyan oo gini Guardiola ayaa sheegay inuu filayo in ciyaaryahankiisa cusub uu ka soo muuqan doono garoonka Lambeau haddii galabta aysan waxba ka qaldamin tababarka ama caawa isaga ma xanuunsana kaliya sariir ayuu ka soo dhacay anqowga ama qoobka ayaa wax yar ka gaaray markaas wuu ciyaari doonaa Guardiola ayaa sidaa ka yiri shir jiraa'id ka hor kulanka ay la yeelanayaan Bayern saaxiibayaal akhbaaraadkii ugu dambeeyay ee sportska ee maanta soo gaaray inta ayuu nooga dhan yahay wax alla wixii soo kordhana mar walba kala socda Facebook page-ka oo ay kugu soo dhigi doono qoraal ahaan ku xirnaada alnaqaay media YouTube iyo Facebook page si aad u heshaan warar ku saleysan xaqiiqda waadna ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad ugu xiran tihiin kanaalkeena alnaqaay media YouTube iyo Facebook page-kaba saaxiibayaal waxa kale oo idinka codsanayaa inaad kor noo qaadaan si aan u helno subscribers badan waxaan ka codsanayaa in saaxiibkaaga ama qof alla qofka isku fiicantiin aan ugu soo xirtaan si uu noogu sii kordho subscribe-ka oo nalaga doonayo oo ah 1000 YouTube-ka iyo 10,000 oo followers oo Facebook page-ka ah marka idinka ayaana dhisi kara ee ku dadaala inaad nagu soo xirtaan saaxiibadiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh